السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahayga qaaliga waa idin salaamay mar kale muuqaal kale oo cusub habeenimo wanaagsan soo dhawaada cawada maxaa noo wadaa cawada waxaan rabaa inaan commentayaasha ka jawaabo haduu ilaahay qadaro walaalaha qaaliga iyo sida maaragtay ay garab istaageen macnaha ay ii soo dhiirigelinayaan dhammaan waxaan idin walaalahayga qaaliga soo dhawaada qofa wax ii soo qoray video dambe soo dhigayay way aad commentayaasha uga jawaabaynin dadka ku dhiirigeliyo wax ku soo qora ina u jawaabto maxaa ku weysa camal wallahi xumaaniga ma aha laakiin commentayaasha waa akhriyaa markaan arko qof ama su'aal qaba wax weydiinaya ama qof wax ka cabanaya qofkaas oo kale waa ka hadlaa laakiin inta badan dhiirigelin ay yihiin marka ma sha Allah saas awgeeda aan usoo duubi waay maahan iyo waqtigoo aan iska badneen oo marar baaragtay hawsh iyo cariyo iska badan yahay marka cawada insha Allah commentiga in alla intaan ka gaana akhrin doona walaalahayga qaaliga waan idin mahad celinayaa haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu qadaro waana mahadsantiin sida aad ii tixgeliseen codsigayga saakay od gabadhii aan maaragtay u booqateen channelkeeda walow sidii la rabay aadna u booqanin dad badan booqda dadna ma booqanin wali waa rajeynaa inay booqan doonaan insha Allah ayna gaarsiin doonaan wankeedu Ilaahay qadaro soo dhawaada marka commentiga koobaad aan ku bilaabayaa gabadhan waxay tiri ma sha Allah Faadumo qalbi wanaag Allah ku xifdiyo habo macaan qisooyinka quruxda badan ee dhiirigelinta ah ma sha Allah tabaarakallah oo noo soo gudbiso waan ka helnaa ma sha Allah waa sax walaalahayga qaaliga dhiirigelin marka oo maaragtay qofka markuu wax adiga dantaada ayaha u wanaagsan oo kugu dhiirigelinayo wax ka wanaagsan ma laha wala is dhiirigeliyaa laakiin hadii adduunka la isku dhiirigeliyaa ma wanaagsana laakiin aakhiradaada wax ku anfacaya waxaas saad u sameyn lahayd horumar ku gaari lahayd waxa ajir ku helid lagula wadaagayo ma sha Allah waaye Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqahana tuso dhamaanteena gabadhan waxay tiri waan soo booqday Ilaahay ha ku xafido insha Allah channelka saaka anaga coostina soo booqan shukran waa rajeynaa inaad soo booqateed ninka haduu Ilaahay qadaro gabadhan kale waxay tiri ma sha Allah Allahumma aamin ya rabbi tan waa ducada aad u duceysay dadka wiilka Ilaahay ha u fududeeyo safarka Allah uga dhigataa ka dhibla ma sha Allah aamin ya rabbi Ilaahay ha u fududeeyo gabadhan kale waxay tiri ma sha Allah safarkii ugu fududaa Ilaahay kaaga dhigo walaalahayga qaaliga horta commentigu wuxuu u badan yahay dhiirigelin iyo waxyaabo taas ah insha Allah kuwa qaarna waa akhrin doona waxyaabo yar oo ma dhiirigelinta ama aad uga gaaban oo gudbaya haduu Ilaahay idmo wiilka ducada naga soo codsaday Allah ha u fududeeyo safarka oo qabo Allah ugu dhigo insha Allah mid khayr qaba Allah uga dhigo aamin ya rabbi safarku waa qayb cadaabta kamid ah dhahay marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u fududeeyo qof walba oo safara adduunka dush safar ku ah maanta mar wax dhageysanaya waxaan dhageystay runtii maalin hore dhageystay laakiin maanta marka aan arkay duuliyo dhan oo asagoo diyaarad wada oo hawada ku jira tirab way maad ka waran la hawla wala quwwata illa billah geeridu meel alla meesha Ilaahay kugu talagalay inay kugu qabato ay kugu qabanaysaa wallahi waa ka naxay maxay kula tahay dareemeen dadka diyaaradda saaran nasiib wanaag muslim uu ahaa inta badan dadka diyaaradda saaran muslimiin ay ahaayeen caawiyaha maaragtay la saarayna muslim ayuu ahaa dhamaantood inta badan wax yar ma ogiye maaragtay waxa maleynay dhamaan wada muslimiin ahaayeen oo meelay ka kacday waxay u socotay magaalada la yiraahdo Daa'if maaragtay bayna Makka iyo Madiina ah ay u socotay intay gaarinba duuliyihii ama nafta ka dhacdaba subhanaka malikul qudus meel soko oo aan meeshii ahayn si degdeg loogu dajiyay diyaaradii dadka iyadoo loo sheegay oo aayad quraan lagu dul aqriyay wallahi waa cajiib wiilkan wuxuu dhahay ma sha Allah walaal Faadumo Maxamed waan ku salaamay inuu wiilha waan ku salaamay ayuu yiri salaan qaaliya salaan ka bacdi waan u saaray inanta
waanad aad nala soo wadaagtay. Mahadsanid. Qisooyinka aad noo soo gudbisana walaalo ilaahay ha ku barakeeye adi iyo dhammaan ummadda muslimiinta oo dhan. walaalo waxaan rabaa in la ii soo duceeyo. waxaan haystaa wiil yar oo bilaa hooyo aan waxba dhaamin. waxaan ku noolahay qurbaha ayaan ku noolahay Yurub. meeshaasna caruurta waa la iska qaataa. marka walaale noo soo duceeyay. shukran. ilaahay subxaanahu wa tacaala hooyo la-aan oo waxba dhaamin. dabcan hooyadii ma dhiman, ilaahay baa garanaya. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kuu xifdiyo. ilaahayna gaal iyo balaayo kaagama keeno. markastana waxaan jecel dadka qurbaha jooga inaan u duceeyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala mushkilada haysato iyo dhibka haysta ha ka dulqaado, dhinacna ha ka marsiiyo. wallaahi gabdho badanaa Yurub igala soo xiriira oo ilmo haysta oo qaarkood iyagoo murugsan oynaaya anta ilmaha qof ka miduhu uu dhibo. markuu mid ka miduhu ku dhibo inuu u sheego gaaladii kuu sheegaa ka cabsanaysaa. hadduu mid ka miduhu gaalada kuu sheeg dhammaantood waa lagaa wareegsanayaa. marka waa meel maaragtay gaaladu ay dadka ku gumaystaane. ciidda ilaahay waa ballaarantahay. waxaan leeyahay qof walboo muslina ilmihiisana u naxaaya dhulka muslimka ha soo aado. dhulkoo dhan ilaahay baa iskale, laakiin gaalada wadamadooda ha kasoo tago. cayrta iyo waxyaabo yar la siinayo ku sirin. waxaa ka dambeeya wax kale oo ilmahaaga in lagula leeyahay. gabadhan kale waxay tiri salaamu calaykum hawa qaali, xageenkaa la soo xiriiraa. qisooyinka aan kala kulmay dikriga alle ayaan kula wadaagayaa. gabadhaasna waa aan u diray meesha iga soo xiriirin lahayd hadduu ilaahay qadaro. marka maasha allah waa filayaa inaad qisooyinka nala soo wadaagtaan adinkana dhammaantiina oo aan asxaabta uga faa'iideyno iyo walaalaha dhammaan dhiirigelinta u baahan. mar walbana aan ku dhiirigelino hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadaro. gabadhan wiil inuu yahaan u maleynayaa. asalaamu calaykum walaal Faatimo, waan kugu xiranahay ayuu yiri muddo dheer. aad baa u helaa qisooyinkaaga qaaliga. duco gaara waxaad u duceysaa dadka ilmo la-aanta ay haysato misna dadkooda dhibanayaasha u ah ee magacyada ugu bixiyeen wixii alle u keenay. waa codsi gaar ah walaalo. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leeyahay qof walba hooyo iyo aabbo, wiil iyo gabar micnaha oo owlad la-aan ah, ubad la-aan ah, inuu ilaahay ubad siiyo. ummadeena Soomaaliyeedna waxaan uga digayaa dadka ay ku diganayaan inay iska daayaan. awlaad ilaahay yaa bixiyo, cid kale ma bixiso. qofta haddii awlaad dhali weyso 10 magaca loo bixinaa. ma dhasho, madhaliis, qumayo, saan, kan wax intaasoo magac ayaa loo bixinayaa. ma fiicno in lagu digto qofkii ilma aan dhalin. qiso yar oo aad u xanuun badan, aadna u kooban. arrintaana ay soo xasuusanayso waxay ahayd gabar ayaa nin qabay muddo dheer ayuu qabay, waxba maysan dhalin. waa dambe ayuu gabar kala guursaday. gabadhii kale ayaa uur u yeelatay. cunugii koowaad ay u dhashay, kii labaad ay u dhashay, kii saddexaad iyadoo uurkiisa leh. guriga uu degan yahay qayb ka mid ayuu soo dejiyay. gabadha maadaama aysan ilmo dhalin, ilmahaanay gabadhaas la haydaa oo ku faraxsan tahay maadaama ninka ilmo dhalay ayada ilaahay uusa ilmo siin. ilmahaas iska laxawsataa oo isaga indha qabowsataa. marka naagtaan wixiiba istiriba naagtaan waa ma dhashee ilmaha amay kaa qumeysataa. maalinka dambe waxay iska soo goysay galab casir ayadoo ah in maamadii oo cunug kamida saa yaart u laxawsanaysa tira naanaga faq cunuga habaree ma dhashada ah. ereygaas intee in xanuun la eg uu qofka gaarsii karaa kula tahay. way isku naxday, way isku yaxyaxday, way isku yaryaraatay, way istaagtay.
wayna soo weysiisatay 2 ragac ayay tukatay ilaahay barso wixii ilaahayow waxa adigu ii keentay macnaha qadar adigu ii keentay ayaa leeyagu caynaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala xataa caadada kuma dhici jirin caada lagu soo tuuray waxa ka duuray yeelatay gabadha markay uurka yeelatay ee cunugii koobaad ay dhashay cunugii weynaa ee gabadhan u weynaa ayaa la qaatay waa dhintay macnaha uur kale ku ceshatay cunugii labaad markay dhashana cunugii labaad gabadhan ka dhintay markay caynis uur leed cunug saddexaad ay dhashay marka 3 cunug ay gabadhii hore dhashay macnaha gabadhii awl la qabi jiray 3 markay dhashay qoftan 3 waa laga dilay 3 waa ka dhinteen ilaahay baa ducadeeda hal mar aqbalay iyadana waxa la tusay in iyada inta laga qaado qoftan loo dhiibi karo ayaa la tusay marka dadoo magacyada dadku bixinaysaan hal iska daayo ma wanaagsana mana fiicna dadkaasna dhaawacay ku yihiin ilmaha ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa baxshad kale ma bixiso subxaanallah wallaahi commentigaas wuu itaabtay si qalbiyan uu itaabtay waayo waa arin aad u xanuun badan gabadhan waxay tiri wallaahi qof aan dhibaato ka tirsanayay waliba waan hagaajiyay laakiin wuu igu sameeyay wallaahi waan afiyay markasta markaan ka doorsaday waxa aan dhahay ilaahow waan afiyay ee afi maasha Allah maxaa ka wanaagsan qof dhib kuu geystay oo adiga wanaajisay oo adigu ku dhibay inaad afiso wataan idin sheegay inaad qof afiso hada qof afis barato adigana caafimaad helaysa oo marka qof afido qalbigaaga ayaa wuxuu noqonayaa qalbi weyn oo maasha Allah caafimaadna waa helaysa laakiin marka aadan qofna afi karin ama qof dhib kuu geystay dhibkaas uu iska ka dhib adigu iska ka haysto iska ka haysto oo qof afi karin subxaanallah ma ahan in qofka uu cuqdad iska haystay inuu qofka afi kara ayaa la rabaa waa arrin wanaagsan kugu taageersanahay gabadhan kale waxay tiri sideen u helaa in aan sameeyo mahadsanid qaali kun wiilkan ciwaankiisa maxaa ugu qoran wiilkan la dhaho waxaa la dhahaa wiilkan cabdixakiin waa wiilka i weydiinayso oo qasooyinkiisa soo qaata marmar wiilkaas channel uu leeyahay channelkiisa waxa ku qoran al-shifa online hadda ka hor commentiga aan kugu soo sheegay moogina aragteen oo hesheen marka maasha Allah in la isxaasido ma fiicna ama la isqariyo dadka qaar marka qof la weydiiyo ma sheegaan laakiin wiilkaas aniga hadda ka hor commentiga ni soo galiyay haddana waa kaasa marka waa laga faa'iideysan karaa walaalahayga qaaliga ilaahay waxaan weydiisanaynaa mar walba in uu nasugo in ilaahay nasugo ayaan alla weydiisanaynaa haddii aad istiraahdo maaragtay qof wax ka xaasid adiguna liibaan ma helaysid ma liibaanaysid marka laakiin tahay qof qalbi weyn waxna waad afin kartaa wax kastana inaad afid ka gudubto adigu waxba kulama ahanba taas awgeed marka waxay ku tusinaysaa inaad caafimaad qalbigaaga u reesto commentigan maasha Allah si kala ayuu ii taabtaa isaguna oo dhiirigelin leh commentiyada qofta dadka noocaan oo kala waa dadka aniga runtii awood ku yeesho oo isii dhiirigeliya gabadhan waxay tiri maasha Allah faadumo ilaahay ha ku xifdiyo ogow faadumo oo kaliya ma ahan magacaaga ee waxa kaloo lagu dhahaa umul khayr oo magaceeda yahay hooyadii khayrka in aad tahay ilaahay igama ka qaado macanto shukran qofka waxa wanaagsan waxa lagu tilmaamo inuu ku sifaysnaado ilaahay waxaan weydiisanayaa qof walba oo markuu arko khayr ii maleeya inuu khayrkaas ilaahay ugu sugo ayaan rabbi weydiisanaa adigana waa mahadsantahay sida quruxda badan oo iigu soo bixisay gabadhan kale waxay tiri assalaamu calaykum
jazaaka allaahu khayr. aad iyo aad ayaan kuu jecelahay ilaahay dartiisa, waana kaaga mahad celinayaa wanaagga aad noo soo gaarsiisid. ilaahay darti in lagu jeclaadaa isnad easy wallaahi. ilaahay dartiisa in qof u jeclaato wax sahlan maahan. walaalaha ilaahay dartiis aan isku jeclaanay ama ilaahay dartiis isku baranay, waxaan rajaynayaa inaan ilaahay hooskiisa wada harsano insha allah hadduu ilaahay qadaro. ilaaha ku jeclaado, dembigaaga kii hore iyo kii dambana allah subxaana wa tacaala ha dhaafo. gabadhan kale waxay tiri shukran abaayo, aad baad u mahadsan tahay. ilaahay khayrka aadna nagu waaniso hana waafajiyo dhammaanteena insha allah, aamiin yaa rabbi. wax ka wanaagsan mar inuu ilaahay wixii khayr oo lagu soo gaarsiiyo inuu ilaahay ku waafajiyo oo ka faa'iideysato. gabdhaha community gabdho horta u badan yahay, wiilasha 1 iyo 2 waaye. jazaaka allaahu khayr jazaa abaayo, ilaahay ha ka ajar siiyo adduun iyo aakhiraba. waxaad jeceshahayna aakhiro jannatul firdaws al-a'laa. yaa salaam. qof walba adduunyadan jooga waxa uu ku taamo waxa waaye jannatul firdaws al-a'laa inuu tago markuu dhinto. ilaahay hana waafajiyo intaan adduunka joogno camalada u sii shaqeysano. ilaahay naxariistiisa janno lagu galaa, camal shaqeys janno laguma galo. laakiin rajada markaa ku noolaato, waajibaadka ilaaliso, xaaraanta iska ilaaliso, waalidka ilaaliso, aad ahaato qof afkiisa iyo qalbigiisa la socdaan markaa noqoto, xilli walbana allah aad ka rajeynayso inuu ku sugo iyo inuu jannadiisa firdowsa ku geliyo, adduunkan oo janno kaaga dhigo, wax ka wanaagsan ma laha. rajada allah ku noolnahay insha allah biidnillaahi alkariim. waxaana rajaynayaa in ilaahay uu jannatul firdaws al-a'laa nagu kulmiyo dhammaan walaalaha qaaliga oo dhan insha allah. wiilkan wuxuu dhahay Faadumo walaal waxaa noo jilcisaa ma hal maalin buu wada akhriyay mise muddo ayuu waday? shukran xabiibti dulmar. ma garanayo inuu gabar inuu wiil magaca uu qoran. wuxuu ka hadlayaa wiilkii akhriyay 114 jeer suuratu ancaam. 114 jeer suuratu ancaam horta lama akhri karo hal maalin iyo wax u dhow toona lama akhrin karo. ninkan wuu bilaabay, wuu waday, jadwal ka samaystay, muddo ayuu waday. maalintuu dhameeyayna waa maalinta farajka uu helay. adigu ha ka daalin, ha ka caajisin, sameey inaad maaragtay saas aad u wado maalin kasta. maalinba aad qayb wado, maalinka dambana guul ayaa ka gaari doontaa insha allah, sida quruxda badan ee wiilkaasuba uu u helay farajka degdega ah. maasha allah. marka inuu qof dhameeyo maalin iyo wax u dhow 114 jeer wax sahlan iyo wax dhow midna maahan. walaalahayga qaaliga waxaan idin leeyahay meel buu joogtaan, ilaahay xaqa ha nagu sugo. labadaas sheekaba waan ku xiranahay, aad baan u xigtay qisaska anoon dhammaysan aan ogay qisada inay ku xiran tahay oo la socdaa. maasha allah. qisooyinka waa macnaha qof la socdo oo mar walba ku xiran. baqaro iyo suuradan yaa hoog badan sixirka burburinta. please iisoo jawaab abaa Faadumo. jawaabta suurada dabcan ancaama ka wadaa saan filaayo, iyo suuratul baqara ayaa xoog badan. suuratul baqara meesha lagu akhriyaa la yiri hal mar 3 maalin sooma galo shaydaan, jinni, sixir, balaayo oo dhan. qofkuna quraanka ilaahay runtii waa wada daawo, shifaa iyo daawo waa ilaahay noo soo dejiyay. laakiin suuratu baqara markaad qof uu akhristo wax alla wax jirkiisa ku jira way ka dhamaanayaan, mana ku harayaan. ancaam faradkas lagu helo waa maqlay, dabcan laga yaabee inay maaragtay dadna ku caafimaadeen, xanuunadas uga caafimaadeen. marka walaalahayga qaaliga ilaahay waxaan idinkaga baryaa inuu sharti shaydaanka dhaafiyo dhammaanteen. gabadhan kale waxay tiri ilaahay baa xaqiiqda og, laakiin gabadhaas wax walba in la daawado ayay rabtaa. qoraal ayaa hadda
ka hor soo dhigtay sidii inay ayada iyo naagta ku wada hadlayaan, laakiin qoraalka hal qof inuu qoray buu u ekaa. Marka labada qoraal isku eegay, isla hal qof baa qoray, laakiin in la daawado bay rabtaa. Ilaahay ha soo hadeeyo, aamiin. Commentigan waa markaan Aisha ka sameynayay video ma clipka oo aan lahaa ilaahay ka cabso iyo waxa macnaa waxyaabaha noocaas waaye. waana arkay commentiyo kale oo dhahayana maxaa kuu geey inaad ka hadasho, yaa adiga kuu keenay, cadaalad ma tahay, maxkamad ma tahay, maxaa kaa galay, yaa kuu sheegay inay buro ka saaratay, waa originalka tinteeda, waxaasoo dhan waa lisoo dhahay. dad badanna maaragtay ayuu sas u waanina ayuu maaragtay kasoo jawaabayeen. marka ani waxba ma u arko horta wax kasto liisoo dhaho ma liisoo jawaabo. gabadhaas walaashay aan anigu cirdigeeda iyo sharafteeda uma aan xad gudbin, laakiin xumaan ayaa uga digay. waxa ay sameynayso inaysan fiicneen ayaan u sheegay, waana la wala ogyahay inaysan waxa ay sameynay aysan fiicneen. oo mana qofku inuu qoyskiisa ka hadlo, inuu gurigiisa ka hadlo wax fiican maahan. inaa mar walba tiraahdo maxaa la dhihi jiray sidaana sameynaa gurigaaga gudihiisa, waa waxaa fiicnayn waaye, ma wanaagsana. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u yiri hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna waaye. waxaa isku tihiin dhar, asan dharu kuwiiha adna dhara u tahay, maaragta mala dhihino inaa marka tiraasaan waaye kan waaye halkaanaan saan inaa waxaas inaa kasoo wax fiican ma ahan. aniga waxaan kasoo hadlana wax oo aan ku waaninayo oo iyada u dana aayaheeda aakhira dambe ay ahayd maahane. caayna ma jirin, mana ana caaynin. aniga buruka inay tahaan dadka dhan way u wada jeelaan, inay buruka tahay dadka dhan waa loo wada jeedaa. hadii qofkaan buruka aqoonin ayaa waxaas loo sheegayaa. haba macaan noo soo badi qisooyinka suuratul baqara. waxa u maleeyahay inaad ka dheregteen baan u maleynayay qisooyinka suuratul baqara. insha Allah hadduu alla idmo waa soo gudbin doona, waayo mar walba qiso markaad dhageysanayso ama aad qiso diyaarinayso, qiso ayaa kugu soo aadaysa. qiso walba waxbay ka hadlaysaa, laakiin insha Allah waxaan jeclaa mar walba qisooyinka guusha leh oo guusha laga gaaray ama lagu caafimaaday, haddii suuratul baqara yihiin iyo haddii suurad kale inaan noo soo gudbiyo biidnillah, iyaduna kama marna insha Allah. mahadsanid Faadumo, khayr Allah ku sii abaayo adiga iyo familigaaga. Allah ha idin xifdiyo, aamiin yaa rabbi. adigana sidoo kale Allah subxaana wa tacaala waalidka iyo adiga iyo ilmihii haddaa oday leed intaba Allah kuu xifdiyo adigana. gabadhan kale waxay tiri maasha Allah Faadumo, ilaahay dartiis baa kuu jeclahay, waa daawadaa kiliibyadaada marmar dhifa oon mashquulo mooyaane markasta waan daawadaa. ilaahay dartiina waan kuu jeclahay. inuu ilaahay darti qof kuu jeclado wax sahlan maahan. ilaahay subxaana wa tacaala ha nagu sugo dhammaanteen, qalbiyadana ha ka dhigo kuwa ilaahay darti isku jeclaada. walaalahayga qaaligaa commenti kala jiro oo ma raba inaan maaragta kaas ka hadlo, laakiin maalina maanta ahayna ka hadli doonaa hadduu ilaahay qadaro. su-aalahaas oo markaan arko oo kalena anigu idirigeliyaan maaha, horta ima niyo jebiyaan. meeshaa markaa ani soo galayay waan ogaa in qof i caynaya, inuu qof i ammaanayo, inaa qof kasta ina helayo, intaba waa ogahay. laakiin dulaan u leeyahay. waxaana markaa dul u leedahay oo gegsi leedahay oo maaragtay wiil hadda ayaamahan lagu dhaganaa oo Ashraf la yiraa, inuu xun yahay inuu fiican yahay ilaahay baan iga og ma ogi. ayaa mar qofka ma ogtahay waxaa jirta wax marmar laga qaato oo gaaladaba mararka qaar waxyaabaha iyo siday u dhaqmayaan maaragtay waxyaaba faa'iido leh oo qofka asoo xataa gaal ah laga qaadan kara ayaa jiro. wiilkaasa waxaa la yiri waxaa ku daawatay wuxuu yiri Cabdicasiis wuxuu ku yiri intaasoo kun ayaa ku daawato, commentiga kuu soo qoran ka waran negative ma leeyahay. wuxuu yiri commenti ayaa wuxuu jiray video ku dhawaad 1 milyan ee daawatay ayaa jiray yiri 5,000 ku dhawaad oo negative ayaa la soo qoray uu dhahay. aniga marka wuxuu yiri haba la soo qoro
hadda adiga wuxuu yiri adoo isoo caynaya ama adigoo waxun isoo qoraya ayaad comment iga soo bixisay markaad qorta kuugu dambeysay Soomaa waa run marka qorta kuugu dambeysay aniga maxaa ii diiday yiri inaan inta aqriyo ka tago maxay saameyn iigu yeelanaysaa macnaha eray fiican bay eraygaas eray fiican u ahaa waana saxo adiga qofku soo dhal ilaahay leeysaa qof caadi ma aragtay wax fiican ku soo qorana waa heli laakiin aan dad igu xiran boqolkiiba boqol ma sha Allah waxaan dhihi karaa 4-5 kama badna dadka negative ii soo qora adinkana waxaan leeyahay waxaan leeyahay waa maasantiin maadaama ta kilibkayga daawateen wax kala dhex baxdeen aad ii soo qorteen waa daawashadaas ku maasantiin baan inta faa'iidadeeda ah ma fahanteen marka yaa laakiin su'aalahaas la weydiinayay iyo waxa la soo su'aalayay maalin dhaweedna waxa jirtay inaan community-ga saaro comment ama qoraal aan soo qoray ee aan lahaa dad waxaaba jira idahaya antii soo waceen ama comment maartii ii soo qoreen cod ii soo duubeen meeshaana 2 sano fadhisaa marka isku kaana sifay qofka tahay anaga hawada gelinayna ama hawada ku kicinayna ani waxa rajeynaa haduu Ilaahay qadaro insha Allah waxa rajeynayaa inta 100,000 xataa hadaan gaaro anigoo qofna sheeganin qoftaas ahana aan qof aan dhihin qofna aysan maanta iigu sheer galin ama iigu kala kicin reeqan sax ah ama reeq quraac ahay inaan gaaro yooman min ayaan biidnillaahi alkariim maalintaas aan gaaro insha Allah 100 ayaan hadli doona inta ka horeeto ma hadlaayo maalinkaasna waxa rajeynayaa waxa mahad celinay inaan ku hadlin oo marna cid aan dhaliil u soo gudbin waayo dadka meel kasta jooga ku daawanaya 150 qabiil ayay kala yihiin wax isku mid ah way ku yar yihiin marka hadaa maanta ku dhaho reeq quraacan ahay ee aan kula noqdo reex xawaashka waran ama cida email-inaysa aan noqon waayo soo igama noqsan lahayn anoo waliba isu ka sheegay marka gabar Soomaaliyeed wanaaga jecel dadka inay waanisa jecel ayaan ahay aniga qisooyinka aan soo gudbiyana dad aan isla waxay ka bedelayaan walaaltinimada waligeed waxaan ku leeyahay dadkaas dhifta qofka ma ahane inta igu xiran maanta oo wada arkaysaan qof yiri waa laga yaabaa dadka qaar inay dhahaan reer Muqdisho miyaa tahay laakiin wali qof ima uusan dhihin hagee ma aragtay ahayd iyo see ahayd iyo yaad ahayd iyo reer quraac masriiq qasmina leema dhihin marka walaalahayga qaaliga waxaan rajeynayaa inuu noqon doono qofka nacaska ah qofka qabyaalada ee qoorta u saaran tahay afka mar walba ku haya reehibil kan nacas inuu kaas yaa rajeynayaa kan guuleystay oo wanaagsan waxaan rajeynayaa kan Allahii uuntayna aqooday wax alla wixii uu arkana ka gudba hadii dib loo geystana cafiya hadii oo wax loo soo qorana hadana sidoo kale cafiya ana hada dadkaas cafsa iga tihiin waxay soo qortay ogtihiin oo cafs baa iga tihiin laakiin de waxaan rajeynayaa inaan qof dambe u qorin farahaagan dhuubana quruxda badan ee birka maal waxaad ku qortay lagu weydiinay inaadan ku soo qorin dhaliil iyo waxyaabo noocaas rajeyna insha Allah haduu Ilaahay idmo walaalahayga qaaliga soo dhawaada kilibka waa dheeraday comment iyo share waxba isugu jira waxaad ila meel wajin tahbiinimo wanaagsan like share comment-ga waa xaqiina fiirada quruxda badan waa xaqiina iyo intaan kulmayna muuqaalkan muuqaal xiga insha Allah salaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.